maanta waxaa magaalada Laascaanood ka furmay shirbeeleed weyn oo culays lagu saarayo Somaliland looguna magacdaray ayakatashiga beelaha SSC waxaana shirkaas ka imaanaya warar waaweyn oo sheegaya in shirkaas maalintii koowaad la isku fahmi waayay ayadoo ay jiraan laba garab oo durba shirkaas ka abuurmay waxaana la soo sheegayaa in la isku hayo sidii loo wajihi lahaa xalka guud ee Laascaanood iyo sidii maalinta koowaad loo qaadan lahaa go'aan midaysan oo lala wadaago warbaahinta laakiinse waxaa dood ka timi go'aankaas iyo sida loo dhigi doono waxaana loo xaqiijiyay in Garaad Jaamac Garaad Cali uu soo jeediyay inay soo saaraan qodobo waaweyn oo Somaliland culays lagu saarayo ayadoo loo jeedinayo inay isaga baxdo gobolka Sool waxaase fikirka Garaad Jaamac Garaad Cali diiday oo ka hor yimid Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ah garaadka 17 sano ee la soo dhaafay wax laga weydiinayay arrimaha Laascaanood waxaana loo xaqiijiyay inuu Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil soo jeediyay inaysan u fududeyn inay dhahaan Somaliland hay isaga baxdo gobolka Sool wuxuu sheegay inay Somaliland gobolka ku leedahay saameyn weyn oo dhinac walba ah haddii ay maanta go'aankaas qaataan laga yaabo inuu dhaco iska horimaad ciidan kaasi oo meesha ka saaraya shirkooda keenayana barakac shacab xalna uusan u ahayn dadka reer Sool waxaana uu soo jeediyay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil in lala fariisto Somaliland dawlad iyo odayaal dhaqanba lagalana hadlo tabashada ay qabaan taasi oo keenaysa inay Somaliland si nabdoon uga baxdo gobolka Sool ama la isku raaco waxay raalli ka yihiin isimada dhaqanka gobolka Sool oo ay Somaliland dhageysato rabitaankooda uguna shaqeyso dadka gobolka Sool labadan fikradood ayaa ahaa kuwii ugu cuslaa ee maanta looga dooday wajigii koowaad ee shirka ka qabsoomay Laascaanood waxaana la sheegay inaan waxba la isku raacin loona ballamay in qodobada si fiican looga doodo shir kalena la isugu yimaado waxaana jira ganacsato iyo dad hantidoodu taalo Laascaanood oo si weyn ugu faraadaygaya inaan gobolka Sool laga ridin colaad halkaasna aan lagu burburin hantidooda qodobkaas ayaana ah kan ugu muhiimsan ee u baahan in si qoto dheer looga doodo marka la eego waxgaradka Laascaanood isugu tagay waxa ku jira kuwaan hal guri ku lahayn Laascaanood oo si weyn u raadinaya in dagaal laga rido magaalada Laascaanood taasi oo muujinaysa inaysan wax dan ah ka lahayn dadka ka barakacaya hantidooduna ku burburayso haddii Laascaanood uu dagaal ka dhaco taasi oo uga baahan dadka degan Laascaanood inay ka fiirsadaan kana digtoonaadaan dadka ka shaqeynaya aragtida ah in gobolka Sool laga rido dagaal sidoo kale marka la eego qodobada ay isku hayaan waxgaradka gobolka Sool waxaa loo badinayaa inuu shirkan burburi doono ayadoo ay qolo walba eeganayso danteeda dhinaca kalena dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ayaa ugu baaqay isimada iyo waxgaradka gobolka Sool inaysan wada hadalka iyo xalka ka tagin hormuudna aysan u noqon dagaal iyo qalalaase ka dhaca gobolka Sool taasi oo ah aragtida ay qabaan dadka jecel horumarka reer Sool daawada aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose muuqaalkana la wadaag asxaabtaada